waayahay asxaabta qaaliga ah intaanan u gudagelin filinkan waxaynu kaa codsanaynaa inaad nagu soo biirto haddii aad nagu cusub tahay haddii aad nala joogtayna waad ku mahadsan tahay waxaynu saaranahay wadada 30,000 ee aan dhowaan u dawaaldegi doona xafladda 30,000 fadlan ka mid noqo asxaabtana gaarsiinaysa 30,000 waayahay filinkan inta aan u gudagelin please waxaynu kaa codsanaynaa si naxariis leh muuqaalka like saar commentna ka soo bixi share garay asxaabtaada la wadaag assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh anigu waxaan King Solver waxaad iga daawanaysaan King Solver Pro King Solver Pro waayahay asxaabtada qaaliga ah isku soo noqosho wanaagsan familkan waxay u socdaan guri ay dhawaan ku gareysteen dhanka ay online-ka familka ayaa wuxuu ka kooban yahay Garfin, Kenra iyo Madison oo ah caruurta ay wada dhaleen Eric iyo Amy familkan ayaa aad ugu faraxsan gurigan cusub waxaa la soo gaaray gurigii cusba waxaa la bilaabay in guriga la iska jekareeyo oo marba dhinac loo maro Garfin ayaa wuxuu si kadisa ku arkaya walaashii Madison oo darbiga kaliya la hadlaysa aad buu ula yaabaya markuu weydiiyo yiraahdo maxaa kugu dhacay waxay leedahay waxba waxaynu cararaysaa banaanka Eric ayaa wiilkii yaraa Garfin ah siinaya bahal yar oo gacanta la gashto glove ah lagu ciyaaro banooniga Eric markuu siiyo kadib wuxuu ku ciyaarayaa banooniga cunuga yaraha kadib waxa ay ka qabsanaysaa geedkii markuu imaado aad buu cabsanayaa shanqar aad ka cabsisa ayuu maqlayaa dib ayuu cararayaa wuxuu isku dayay inuu hooyadii u digo una sheego waxaan jira balse waxay ku qancinaysaa in ay taa isagoo cabsi ku keentay waxbana aysan jirin Garfin ayaa wuxuu soo booqanay qolka Madison laakiin waxay tusinaysaa calaamad aad u leeyahay badan darbiga ay gacan saaraysa kadib timaheeda ayaa kor u kacaya taa ayaana Garfin ku abuuraysaa cabsi iyo walwal hor leh Amy oo iska dhaqanaysaa waxaa dhulka kaga dhacaya dhagaheedii kadib waxay isku dayaysaa dhaga soo qabsato balse waxay arkaysaa calaamad yar oo ka yaabisa hoos ay waxay ku arkaysaa wax yar madow ah isla markaana aad u ur badan kadib waxaa la yaab ku dhalisay biyihii qasaalada oo isku bedelay madow qad ah Amy ayaa waxay soo galaysaa qolka Kenra waxayna u sheegaysaa inay TV-ga codka ka gaabiso maadaama la joogo xilliga ay hurdayeen caruurta kadib Amy waxay soo galaysaa qolka caruurta si ay u seexiso laakiin waxa aad u walsan Garfin oo sheegay hooyadii inuusan saaxan karin laakiin Amy waxay isku dayaysaa inay ku qanciso inuu saaxdo laakiin inuu dibnaysaa Garfin ayaa xaladda soo kacaya maadaama aad u walsanaa waxa uu furaya qaanada dharka uu ku arkayo baaliro guudana badboodaysa kadib dharkii meesha yaal dhan baa ku soo dhacaya taana cabsi ku abuuraysa kadib wuxuu arkayaa baaliro bombala ah oo markaa ida cabsi gelinaya wuu soo carray wax imaanaya qolka aabihii hooyadii waxa soo raacaya aabihii si asaga uu tajiyo wuxuu isku dayay inuu jekareeyo qolka yaraa laakiin wax markii ku soo booday jir aad buu cabsanaya Garfin wuxuu leeyahay aanu saaxan maayo laakiin idinku baradin isla saaxan karaa wuxuu la saaxanaya waalidiintii marka uu qof walba hurdo Garfin ayaa wuxuu maqlayaa shanqar cod ah kadib uu soo kacaya markuu soo kaca kadib waxa uu arkayaa walaashiisii yareyd oo la sheekaysanaysa dhalada isagoo aad u yaaban buu wuxuu leeyahay maxaa jira markaasay leedahay way soo socdaan kadib dhalada dhan waxay noqonaysaa gacmo Garfin aad ayuu arkayaa markii wuxuu ku ordayaa korontada inuu ka siibo dhalada laakiin dhaladii ma aysan tamin layrkii gurigana marwaxad ayuu isku bedelay waalidiinta ayaa waxay ku soo kacayaan qaylada waxay weydiinayaan gabadha maxaa jira balse waxay leedahay mar hore ayay yimaadeen maalintii xigtay ayaa Amy waxay weydiinaysaa gabadheeda xalay maxaa jiray waxay leedahay gabadha yareed saaxiibadii ay ahaayeen Amy ayaa waxay buug dabaq qaybta kore ugu darsanaysaa wiilkeeda waa uu doonayaa markuu galo wuxuu arkayaa banooni aad moodo in uu qofka ugu soo tuuray wuxuu ka shakanayaa Madison inay ku ciyaarayso wuxuu soo galayaa qolkeeda balse ma joogto wuxuu soo qabanayaa banoonigii dhulka ayuu dhigayaa kadib waa uu ordayaa banoonigii aad moodo in la tuuray oo kale Garfin aad buu uga cabsanayaa wuxuu isku dayaa inuu baxsado balse buugtiisii oo la iskor saaray ayaa albaabkii lagu xiray markuu gadaal eegana wuxuu arkayaa kubadii yareed oo baxsatay Eric ayaa guriga imaanaya isagoo wada birta jiirka lagu qabtaa maadaama ilmuhu aad uga cabsanayaan jiirka Garfin ayaa aad u soo ordaya isagoo aad u cabsanaya si uu aabihii ugu sheego waxaa jira iyo wuxuu arkay laakiin ma jirto cid dhagaysanaysa isaga wuxuu dib ugu laabanaya qolkiisa isagoo caraysan Eric iyo Amy ayaa waxay ilmaha ugu tagayaan Kenra maadaama iyagu ay aadayaan xaflad Garfin ayaa wuxuu ka arkayaa daaqada wax aad u mudo aad u cabsi geliyay leerka ayuu daarayaa kadib waxba ma arko wuu seexanayaa isagoo iska dhaadhicinaya inuusan waxba arkinba naftana ku qancinaya inaysan waxba jirin Kenra ayaa waxay soo galaysaa qolka dhaqmada waxay arkaysaa qaybtii hoose oo dhan inay qabsatay qad madow oo aad u wasaq badan aad ay Kenra u cabsanaysaa waxay indheheedu qabanayaan wax ay aad uga argagaxday kadib way ordaysaa balse nasiib darro lugta ayaa laga qabsanayaa aad ay u qaylinaysaa albaabkeena kaligii ayaa sixiraya Garfin maadaama mugdi badan uu jiray wuxuu soo qaadanayaa toosha wuxuu arkayaa boombalihii
oo dhulka jiifa. Kadib wuxuu eegayaa gadaashiisa, wuxuu arkaya boombalihii oo gadaashiisa maray, taana cabsi ku abuuraysa. Markii wax kusoo booday boombalihii, wuu iska caawinaya. Gadaal ayuuna u tuuraya. Wuu soo cararaya Griffin. Wuxuu soo galay qolka walaashii yareed. Wuxuu u sheegay inaysan banaanka kusoo bixin. Wuxuu isku dayay inuu caawiyo Kanra. Dhankaada ayuu soo aadaya, balse wuu istaagaya mana garanayo cidda haysa. Nasiib wanaag, Kanra waxay awood u yeelanaysaa inay baxsato, balse guriga ayaa ku xirmaya. Griffin oo iska taagan waxaa qaadanaya wax sida geedka oo kale ah, waxayna ku tuurayaan banaanka. Madison waxay arkaysaa albaabkii oo iska furmaya keligii, banaankana uu yahay mugdi gudcur ah, balse leer indhaheeda soo jiitay ayay arkaysaa ay boombala iska wareeganaya. Waa iska daba raacaysaa, balse leerka ayaa laga diminaya, mugdi ayay kusoo haraysaa. Dib ayay fiirinaysaa, waxay arkaysaa guriga ka fogaaday. Waxay isku daysaa inay baxsato, balse dhinac walba gacmo ayaa ka qabanaya. Waalidiinta markay guriga kusoo laabtaan waxay arkayaan Griffin oo banaanka ku ooyaya, yaabano aad u argagaxsan. Kanra ordaya umaanaysa waalidiintii, waxayna u sheegaysaa gabadha yareed inaysan gacan ku haynin. Waalidiinta ayaa qol walba ka raadinaya gabadha, balse waa laga waayayaa. Griffin ayaa wuxuu arkaya dhaladii oo daarantay, kadibna wuxuu ka dhex maqlayaa codka gabadha yareed. Wuxuu yeerayaa hooyadii si ay iyaduna u maqasho codkan, balse iminta waxay ku abuuraysaa cabsi aad u daran.